بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ma ogtahay inaad internetka lacag ka samayn karto adiga oo jooga gurigaaga, xafiiskaaga, ama adiga oo wata howlahaaga kale? waxa keliya aad u baahan tahay waxa weeye computer uu ku xidhan yahay internetka iyo account bangi. haddaba videogan waxaan kugu tusi doonaa 5 website ama 5 hab oo aad lacag internetka uga samayn karto. haddii ay dhabkaa tahay inaad lacag samayso, runtii website-yadan waxa aad ka samayn doontaa lacag fiican, ama waxaad ka heli lacag fiican. uma baahnid inaad shaqadaada ka tagto, laakiin waqtiga aad firiga tahay ama waqtiga aad firaaqada tahay ayaad u baahantahay inaad ka faa'iidaysato. website-ka ugu horeeya waxaa la yiraahdaa upwork.com. waa website ay iskugu yimaadaan dhammaan ama badankooda dadka freelancerska ah. freelancer waa dadka iyagu iskoodu shaqaysta, kuwaasoo ka xamaasha internetka. waxa ay yaqaanaan ama ay ku fiican yihiin kala duwan sida website-yada, desktop applicationska iyo app development. dadka qaar ayaa iyagu waxay jecel yihiin inay qoraan article, iyaguna waa yimaadaan. website-ka labaad waa Amazon. Jeff Bezos waxa uu ku bilaabay website-kiisa markii ugu horeysay inuu ku iibiyo buugaagta, laakiin maanta waxaa laga helayaa store-kiisa wax kasta oo macquul ah in suuqyada adduunka lagu iibiyo. waxa uu ku yaalaa Mareykanka. hadda waxa uu ka shaqeeyaa wadamo badan oo Ingiriiska iyo Jarmalka ay ka mid yihiin. Amazon waxaa looga sameeyaa lacagta nidaamyo kala duwan. kan ugu horeeya waa Amazon Mechanical Turk. website-kani waxa uu shaqeeyaa sida upwork.com oo kale. waxaa laga helaa dhammaan waxyaabo kala duwan, waxaana ka helaysaa commission fiican haddii aad service qabato. nidaamka labaad ee Amazon lacagta looga sameeyaa waa Amazon Associate Program. marka hore waxaad samaysanaysaa account si free ah. wax kasta oo ku jira Amazon oo product ah waxaad qaadanaysaa link affiliate ah, kaasoo aad ku iibin karto ama aad ka iibin karto social media iyo dhammaan kuwa la midka ah. website-keena saddexaad waxa uu noqon doonaa YouTube. haddii aad rabto inaad fahanto nidaamka YouTube-ka looga sameeyo lacag, waxaad u baahan tahay keliya inaad hesho monetization threshold-ka si aad u gaadho 4 watch hour ama 4,000 oo saacadood inuu la daawaday website-kaaga. kan labaad inuu kanalkaagu gaadhay 1,000 subscribe iyo inaad ku soo bandhigto wax dadku ay daawan karaan. YouTube waxa uu ka mid yahay meelaha ugu badan ee lacagaha laga sameeyo sida Upwork iyo kuwan soo sheegnay. website-ka afraad ee aynu arki doono isaguna waa clickbank.com. website-kan waxa uu shaqeeyaa nidaam dilaal ahaan oo kale. dilaal micnaheedu waxa weeye inuu qofku service qof lahaa ama product uu qof lahaa intaad qaado aad suuqaada u geyso, oo intaad usoo iibso aad saarato commission. website-kani commissioniisa qaar waxay gaadhaan halka product ama halka service inay ku dhuftaan $1 ama 0.75. waxa aad qaadaysaa product-ga, waxa aad geynaysaa social media. Clickbank ma aha website laga helo product la taaban karo, ee waa website aad ka helayso sida buugaag ama service ama waxyaabo kala duwan, waana mid aad u fiican. website-keena u dambeeya waxaa la yiraahdaa Flippa.com. Flippa waa website-ka ugu horeeya samaynta iyo iibinta business-ka.
waxa uu soo jiitay dad aad u fara badan sanadidii u dambeeyey. waxa uu la mid yahay Amazon iyo eBay oo kale. waxaa lagu iibiyaa alaabaha dijitaalka ah ama loo yaqaano digital asset sida website-yada, applicationada, domainada, Shopify store and Amazon FBA accounts.